aryaadaha lamadi tilaababa talaa ka dhalataa la yiri yaxaa cusub haddii la soconayo ma meel kaloo la aadaa la waaye maxaa Nairobi laga doon war intiina waxaad sheegaysaan dastuurka ma ku qoran tahay war dalkeena inaan la iibsan karin dastuurka ay ku taala war adinkoon daalin xoolaha nool iyo wax soo saarka beeraha ilaa suuq loo helo loo dhoofiyo miisaaniyad ku filan wadanka lama helayo war beera anta kaleeto beero la fala unta ka yaalan badi walaal ka dhoofiya unta ka taala niyow war wax kale iska daayay sagaaradii xitaa qadar baa loo dhoofiyay maxaan miisaaniyad nagu filan ugu heli weyn war niman dhaqaale la'aanta xitaa al-shabaab ay soo wajahday oo waxa la yiri xoolaha baadiyaha ka luma intay xareystaan bay muqdisho wiib keenaan aryaadaha shabaab ma dadkay baadiyeesteen ay xoolo baadiya ku masruufayaan war waxaad sheegaysaan dadadow baadiyeyso oo baadidadow ku bilmiya war hadda ka waxaan maqlay bal dadow deyn ku qaad lo dadow deyn ku sii aryaadaha xaad isugu daalihaysan hadda ka hor faratol igaar la yiraaho wuxuu yiri kalaamaan mugdi ruux ku food karbuuna haysan waa uka kalaamaan mugdi ruux ku food karbuuna haysan waa uka haye war nimanyo mahmaayeen cusub baa soo baxay oo update 2019 ah waxayna kala yihiin maskaxdii ka maqan google ay ku jirtaa ninkii Facebook laga waayo WhatsApp ka laga helaa qofkii iga joog laga waayo mar buu blog la kulmaa waxa kale la yiri nimaad ku darsatay isaga kuguma darsan waaye like sar lama yiraahdee wuxuu ku saaraa la tusaa waxaana kale la yiri Soomaalidu been like way saartaa balse been ma sheer garayso aryaxaad sheegaysin dadkan waxaan been ahayn basharka kuma naqdaan war hore waxa loo yiri hadii aan blog jirin lama kala badbaadeen war bahalaasay heesa haytay ninku ku dheelayniyow hadii aan jaceyl jirin jawhar lama degeeno hadii aan jaceyl jirin balad idii ma joogtee war hadii aan jaceyl jirin jaarba maynaan ahaaneen war hadda qowdinow Soomaaliland iyo Soomaaliya ma jaceyl ka dhaxay war ana war idin hayay dhageysta ra'iisul wasaare Khayre wuxuu soo xiray shirkii culimada khudbad taariikhi oo caaqibadana waa ka jeedsi wuxuu leeyahay hadii dawladii hore ka baqi jireen mucaarad tani waxaas waa ka gudubtay war una maseen liyaabana wiligii ngalantintiiska kan tamajilaaw ari jirtan lankimida oogna arabow arabeeti ya ari jirtay sidii lay ureed aryaadaha madaxweyne farmaajo waa kii shirka qaahira ka qayb galayay wuxuuna la kulmaan la yiri madaxweynihii hore Cabdiqaasim Salaad Xasan nin do'ay aray war madaxweynahayagii Muuse Biixi ma ku jira shirka ka dhacay qaahira aryaadaha warka hayga dhabjinina madaxweynihii hore wuxuu yiri siyaasinimadu ma aha kursi doon kaliya bari gashow inaad wax mucaaradana waa laga fiican yahay dawlad kasto dhalatana hadii aad mucaaradin wax idin hagaagaya male war talada madaxweynaha hore ku soo xasuustay nin odayina dawladda wuxuu kula taliyay fulanimadu qayr ma leh geesinimo yeesha baqaylnimaduna hogaamin kuma fiicne gacan wax bixisa yeesha degdeg iyo fudaydna ma fiicne deganaan iyo dulqaad yeesha qoladiina aan jaarka nahay waxa tihiin talada la roogin walagu rafaada war madaxweyne farmaajo war kama hayside maanta wuxuu ka tagay dalka Eritrea waxaana la yiri asiyaas afwarkii wala kulmaya war Eritrea xuduudii ay Itoobiya la lahayd bay xirataan la yiriye madaxweyne farmaajo Maabi Axmed iyo afwarku soo heshiisinaya war iskaashiga saddexdii dawladood madmadow ma soo dhaxgalay aryaadaha gabarta hadda ka hor la kufsaday lana jarjaray ee magaceedu ahay Caasha Ilyas qoyska dhala waxa la yiri beledka gaalkacyood waa ka qaxeen waxayna u qaxeen xuduudka Soomaaliya iyo Itoobiya waxayna ka carareen la yiri cabsi soo wajahda iyo cadaalad darro arla alwaansa way meelada cadaalad darro ka aragda walka araawe waryaadaheen Soomaaliland waxay xabsiga ka sii deysay hablo dhaqan xumo markii hore lagu qabtay oo Kanadiyaan war waxa la yiri aqoon iyo dadaan awood badan lahayn haduu kala ambado aboorka cunee inaad urursanaan isku aaminto hadba midu ehela arrinka u dirto adinkiya afkaba isu geysataad ku adkaan kartaa Soomaaliya war may ambaagane langi dhimid inoo aboor aamaw war hay'adda wasugida waxay tiri ninka tirsan amniyaadka shabaab baan Muqdisho ku qabanay amiir hore gaday iska dhiibayna xamar baa loo soo gudbiyay vilada la sidii reed lamadiyo war baarlamaanka sidii ardayda dugsi quraanka loo wixi jiray maanta waqti badan ay qaadatay si kooran ku buuxsameynaysa xaadiraan 6 saacan la furay kulanka waxaana la yiri gudiga
xuduudaha ay warbixin ka dhegaysanayaan. war hiiraan oo shalay salaadii roob doonta laga dukanayey maanta roobabkii gugaa ka curtay. war unubi reejo rabba toognay hatiirka dhong hamidowya ilaahow rabni heshaan. war ilaaha baxsha roobke aan ka barino. war Premier League warar kama haysaane kaalinta afraad baa horyaalkii noqoto kooxdu dhamo tartamayaan. war waxaad nooga sheekaynaysaa waa maxay waryaa? waa ciyaarihi adduunka warya haanhaadoo dadka dhax jiran Premier League way noo galeen warya. roob allaha keene amiin.